صفر دي الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسولك صلى الله عليه وسلم وحي نو شيغay القبر إما قبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. waxaa la hadlayaa walaashay muslimka ahay ama walaalkii muslimka ahayd oo isqaawi jirtay oo xubaanta sameey jirtay oo salaadaha la yaaci jirtay oo rabbul caalamiin ku kufri jirtay xaqaan baa noo dambayso. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay walaalay qabrigu isku imaada isku imaantiga qabri hadii ka badbaadayso waxa ka badbaadi lahaa Sa'ad bin Mu'aad ayaa ka badbaadi lahaa. walaashay muslimka ahayd ama walaalkii muslimka ahayo markay iilka meeshan lagu dhigo oo dadkii ku jeclaayeen kaasoo kala tagaan oo dadkii kugu jeclaayeen meesha kaaga noqdaan oo malaa'igtii ku imaato ku tira saddex su'aal ku weydiiyo Allah subhanahu wa ta'ala maxaa ugu jawaabi doonta. waxaa la hadlayaa gabar kastoo isqaawijo, waxaa la hadlayaa wiil boo taariku salaada, waxaa la hadlayaa wiil boo sinaysta, waxaa la hadlayaa wiil boo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq ku la hadlayay. taariku salaad Ilaahay agtiis waxa ku taala cadaab iyo xumaan baa ku taala. mid ka saanayo agti Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ku yeelay cadaab ayaa ku yeelay. tan isqaawisoy Ilaahay agtiis waxa ku yeelay xumaana ku taala. ittaqilla Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada. وتسودوا فإن قيد ساد التقوى صاي سوقات سهيل قاتنا وحا وناس الله كعبسك مال وحا كاهرية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سنة مال ناس مال وحنا كترين وحنا كتر إلا قلب وناسا قبره وحو كل شدا عريري أنا بيت وحشة أنا بيت تراب أنا بيت دود قرقي تحريقة قرقي كل نبدا gurigii cidlada ahay waxa maanta keensata ayaa leedahay. walaashay muslimada ahayd waxa xaqiiqo ah adduunyadan kulli ina ka tagi doono oo maalin ka tagi doono ka safri doono. intaada adduunyada aad ka safrin meeshan wax u soo shaqayso ku anfacay aakhiriya adduun. wallahi na samaalna wax ku tareen, wallahi na samagacna wax ku tareen, wallahi na saxaas qurux badan caruuxna ku tareen. waxaasoo dhan way ka soo noqon doonaan. marka waxa ku dadaashin markasta ku dadaashin wixii qeyr iyo wanaag ku anfaca. waxaa la hadlayaa gabdhaha TikTok xumaanta ku sameynaya isqaawinaya oo madaxa fooqanaya oo xumaantii sinada sameynaya. qof walba xaqaas ku dambeeday. ilaahay ka cabso u toobadkeen, ilaahay u toobadkeen. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ma ra'ayta qabri maana arag mandarka foolxun haday jirtana qabri ayaa ugu foolxun. walaashay muslimka isqaawinayso oo social media xumaanta ka sameynaysa xaalad ay geerida ku imaanayso ma gari karti. ilaahay u toobadkeen xaqaas noo keena. دبيجنا الله دافع خاتم الله نور شيء